رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات وموضوع أن نقهد ليني الطاقات الشبابية ما أودها دلنيرنمو حلقة سيشناد حلقة نحن نقهد لينا سدح قضب وعوان كودوية هي وحيابها مرور بدفيس كواه أما بدبادة واه أما الدفاع واه waxa la yiraahdo awoodaha dadka dhalinyarada ah saddexda arrimood arinta ugu horeysa waxa weeye waa at-taharrur min al-khawf 'ala al-hayat dadka dhalinyarada ah inay ka xoroobaan oo ay ka caafimaad qabaan walwalka iyo walbahaarka ka haya nafsadooda iyo dhimashadeeda iyo geerideeda waxa la yiraahdaa arinta koowaad oo awooda qofka dhalinyaro dhufayska u ah ee awooda qofka dhalinyaro inay wax tarta ka shaqeyn kartaa waxa weeye qofka dhalinyarada inaanu ka walwalaynin nafsadiisa arma wax ku soo gaaraan arma dhimanaysa gormad nafta laga qaadayo gor armad lagu xidhaa armad xabsi gasha waxba noocaas inaan qofka dhalinyarada ah ee raba inuu noloshiisana wax taro nolosha bulshadiisana uu wax taro inaan arrimaha noocaas inaan walwal ku haynin waxa la yiraahdaa cabsida qofka dhalinyarada ah mar walba oo cabsanayo uu nafsadiisa iyo geerideeda uu ka walwalayo waxa la yiraahdaa waa fulaynimadana waxa la yiraahdaa waa waxa koowaad ee xadeeye ee xuduudda u sameeyo ee yaani dhabarka ka jabin kara awoodaha qofka dhalinyarada ah waxa xaqiiqo ah qofka dhalinyarada ah da isagiiba la nool al-khawf 'ala al-hayat de noloshiisii uu ka walwalayo oo nafsadiisii iyo geeri uu yaani muxuu ahaa sheeg yaani la walbahaarsan qofkaasi dumuuxaadkiisii iyo hankiisii iyo muxuu ahaa yaani talaabo uma qaadi karo markaan ka hadlayo inaadan geerida ka walwalin ma ula jeedo inaadan ka fikirin nolosha geerida ka dambaysa ama aadan aakhiro ku tashanin ama aadan yaani inaad dhiman doonto lagu xisaabin doono qabri gali doonto janno iyo naar ka dambayso ha xusuusan oo ha ka walwalin taa ulama jeedo laakiin waxaan ula jeedaa aakhiro ka fikir ka soo inta adduunyada joogto mar walba adiga inaad talaabada qaadi lahayd oo dhimanaysaa iyo wadaawacmaysaa waxba ku soo gaaraya inay yaani caqabad kugu noqoto taa way mas'aladan ka hadlayo waxa la yiraahdaa qofku hadii noloshiisii iyo nafsadiisuba walwaliyo walbahaar ay ku hayso suurtagal maaha inuu talaabo u qaado difaacan mabaadi umma mabaadi ummadeed inuu wax ka difaaco xurmaad ay ummad leedahay inuu wax ka difaaco khayraad iyo dhul ay ummad leedahay inuu wax ka difaaco bal waxaan u suurtagalay xitaa cirdigiisa daatiga sharaftiisa shakhsiyadeed inaanu waxba ka qaban karin oo aanu difaacan karin oo ay cabsidu u diido waxa la yiraahdaa al-khawf wa al-hadd al-ba'is li-taqat ash-shababiyya wa hudud ugu ba'an ee darbi ka horgoyn karta yaani qulqulkii awooda qofka dhalinyarada ahi oo mustaqbalka wax ku qabsan lahaa ama ummadiisa wax ku tari lahaa ikhwana wa akhawati inaga si gaar ah waxaanu nahay dad muslimiin ah waxaan la gudboonay waxa weeye inaanu ilaahay rumayno qadarta inaanu rumayno inaanu yaqiinsano wadadan ku soconahay inay sax tahay oo ay ka maran tahay fasaad inta wixii ka dambeeyay inay de nafsadeenu nawal galisaba ma mar hadaanu nahay mu'miniina billah anu nahay maxay mu'miniina bil qadar hadana wadadaanu ku soconayo waxaan qabanaynay hankeena xalaalnimadooda iyo saxnimadooda aanu ku kalsoonahay oo inaan inagu fasaad wadino inaan xumaan wadino inaan yaani qaab darro ka shaqeynaynin inagu inaan maxay aynaan dulmi ka shaqeynaynin inaan nolosheena wal farabadan ama wal bahaar farabadan ama mashaakil farabadan ay nagu haysaahi nahnu المؤمنون dadkeena dhalinyarada hadana muuminiinta ahi sax ma waxa la yiraahdaa
cabsida qofka dhalinyarada ah mar walba uu ka walwalayo hadaa darbigan korto wad ka soo dhacaysaa wad dhimanaysaa hadaad muxuu ahaa sheeg safarka gasho maxaa la oran jiray baawurba kula gudoomi wad dhimanaysaa in nafsadiisiiba inay walwalkeeda iyo walbahaarkeedu uu diiday inuu talaabo qaado waxay sabab u noqotaa baa la yiraahdaa qofka dhalinyarada ah inuu barto yani duleysnaanta nolosha inuu mar walba uu ku qanacsanaado waxay bartaaba dhalinyarada inay aqbalaan gumaysiga xagga fikradda ah amaba madaniga ah yani si maadi ah iyo si fikriya labadaba in loo gumaysto waxay aqbashaaba waxa ka dhigtaaba dhalinyarada cabsidu inay mar walba aqbalaan nolosha qaybteeda hooseysa ee dhaqaaq la'aanta ah oo xirfad xumada ah oo hal abuur la'aanta ah oo dhaqaaq la'aanta ah inay ku noolaadaan نماذج مهمة وحلاقه هلي كرا في داخل المسلمين لبعض نعبة عند يعني لقوا حروب الخوف على الحياة دي إن لقوا حروب كروايو لبعض داخل المسلمين أي النماذج لوجه هلي كرا أدات في رسان يعني لأن يرضي لنا ولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما لنا ولد الخلفاء الراشدين أما با يعني بدايات كي يعني إيش خلافات كي ملك جيب بقرطية كل إسلام حدرين كرتان واجد لأن يرضى المسلمين تدي أي ديار كوهين نفسدوا ذين بحيان ومحوها إيشك أي نرشوا ذوها الجماري ومدوا ذي دولكوا ذي دفاعان وأنا نفسدوا ذي جيري أنا عبسكوهين حدري من كرتان مسلمين تويفيدين يعني حرب يا هين عزي يا كرامة شرف بيكونوا ولاين لكن ده دنك كلامتنا واحد دري من كرتان مركي يعني درين كأهوى ضمانة يساب دباتك سوغاري مشاكل عبس وجب يساوض يعني وتجبني ثمرك والكاي والبحر كان نفسده ذوقا قفسده مر والبود ديب يساوض دلوب يساوض جموب يسام إذا waxaa tusaale noogu filan taariikhdii dawladihii muslimiinta ahaa الدولة العباسية وكله يعني نهايات كذي حضرتك كرتان يعني ملوكتي شام جوكتي مصر جوكتي محوها إيش عراق جوكتي أندلس أنتي رأيذا كهر سنة جوكتي حضرتك كرتان markii tataarku dagaalka ku soo qaaday ninkii hoolaaka loo oran jiray heshiisyada ay la galayeen say isu dhibay nin walbaahiba isagoo isla de naftaada oo kaliya yaani caynso waxa ku dhacaysay in intay isdhiibaan hal mar seefta dhinac laga maro oo la baabiyo iyagoo ummadnan baa la tirtiray oo muluuknan iyo boqortooyin dhan baa la tirtiray oo ummadnan ayun baa la baabiyay asbaab faqad annahum kanu yakhafuna ala al-maut marka masalada waxa weeye in lagu xiroobo ka cabsiga يعني إن لقوا الولو نرشي نفصدي داوع مشاكل إن لقوا الولو أود هذا دلنيرة نما ويحديني دلنيرة ويا السفران ويا السعودان وجنع سبي آذان ويا السعودان ويا السفران أو وحبر شيء طلب العلم بيو السعودان يعني علم بارس يدل حيس بيو بحان وحوي دبتان نرشي وحكو صادران نرشي وحكو سكرديان مشاكل جريب بيو حكا قبطان لكن هذا كعب صدان دل حيس كلا هذا يفسيروا في أرض الله هذا بدأ دوت قوة وتكل من يسي هذا بهور على يرسل عضوي كل دعيسة هذا دولان كقيم قشوا يعني وتصور لي مانيس وحصل أنا وحوي ودي دلنا يرني ماذا حدود خطر بيكون قانيسة ونفيس مركا ود هذا دلنا يرني ما أدلق لي كرتين النفس هذا كحر يسوع الخوف على الحياة مثلا هذا بدو حوي الخوف على الرزق وأيضنا يعني رنتي وده دتك دلنا يرن دتك دلنا يرن وده هذا يعني قيمة دلي كرتا وإن أرزاق هذا أي كول ولا محد عنيسة محد كنا ولا نيسة يدنا نكول ولا بس هذا عاد بنو كوبيا وحد نفيس وده حد دلنا يرن نمول لا لقلي كرو عايمين كرو بدبادين كرا نفصل إن لقى حرية الخوف على الرزق نحن أنا المسلمين بأنه نهاي نتوكل على الله إلهي بان سبحانه وتعالى نسكوها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنا ليه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حداد إلهي أترى السارن لهيدين ست نبأ وحدين أرزاق لها وإذن بيل لها وأرزاق ذينا يقود كينا إذن كفالة قادرها سيدو رب سبحانه وتعالى وكفالة قادر الشمبرها سبي حبي الشمبرتو بحبابوش كذا كبحدا يدو بقلالا ونعلوش يدو وحبا كجرين كرب كينا وحيسو هيتا يدو محال هذا يعني علوشا أي عنتو قبو هذا
marka masalada maxaa la cunayaa iyo gaaja loo dhimanayaa iyo walwalka faraha badan in laga xoroobo waa waxay yaabaha awoodaha dhalinyaranimada dhufayska oo ah awoodaha dhalinyaranimada yani badbaadin kara ayuun bay kamid tahay arada cabsida zaayidka ahi waxay dhiiri gelisaa xitaa damacay kordhisaa waxay ka keenaysaa intaad ka walwalayso maxaad cunaysaa maxaad ku noolaanaysaa iyo arsaaq intaad ka walwalayso waxay kugu dhiiri gelinaysaa inaad xaraamta cunto inaad xalaal miiradka ka tagto wax walba inay ku dhadhamaan oo waxa qurunkaaya waxa baqtigaaya waxa xaraamtaay waxa rabbi subhanahu wa ta'ala u xaraanimay inaad ka leexleexan weyso ayuun bay keenaysaa waxa kamida waxyaabaha yani khatarta ah oo yani ka walwalka arsaaqdu yani uu keeni karo yani waxa kamida wixii maal iyo hanti rabbi subhanahu wa ta'ala uu gacanteena ku shubay inaan cuni kari weyno inaan baahiyadeena ku xalisan kari weyno dalika taariikhda dunida hadii la fiiro dadkii yani xoolaha helay dariiqay doonaan baa ku helaanay namaadij iyo tusaalooyin waxa laga dhaxelayaa dad gaajo u dhintay ayagoo xoolo meel geeyaan marka yani wad dhimanaysaa iyo walwal iyo gaajo waxay keenaysaa حولي بعضها هي إن هذا وحبك عني كرويسو لذلك يقول العلماء يعني الطمع يعني الخوف على الرزق يعني يكثر الطمع وحيدا عن الرزاق ذا إن كول والشعب وحي بدين يسا طمع طمع أنا وحيدا ومهلكه والوجه لك سماء رزق إذا مرك قفك مؤمن كائر لأن يرضى ومكفول إلهي سبحانه وتعالى كفارة قاضي والسبب مطلوب سببتي رزق إذا أتكون كين له والله غرب أنا دقائق أظن محي أسباب التي ما دام لمذا لكن هو عاد قبصان لهيدي الطموحات الحقيقية لهيدي هم هذا وأتصروا قاضي لهيد إن كهر استاجتو أرزاق ذا دوين يساي الشقة على جار عدينا يا بيل بدوي يساي جاتا دوني من يساي مرنا بقى سحمة أرنت سدحات يا ربنا كوج من جبيو أو ده هذا يرد الفيسكو وحوي التحرر من عبودية للقيم الفاسدة لأن يريدون كحروبان إن يضمون نقدان قيم كفوش حن وآت كوقابت درن القيم الفاسدة وحولت كذا وحول باء ضدك أي إلى شذان أو أي ضدك قيمة ويلان لكن عن شرع إلهي قيمة كلهين وحبها إلى شنة شرع عن قيمها كلهين وحكم ذا قبيلة وحكم ذا يعني مذهبية إيو يعني محها إيش جناد مذهب سكول الجسو محي يعني أضو قيمة كلية شيء ده شرع الله سبحانه وتعالى قيمة لا ملها مركب وحبها قيم كحنا إن أنو قبيلة سكول الجنو وأنو دول سكول الجنو وأنو كوحي حركي حزب سكول الجنو وأنو محل إيش أنو مذهب إيو محها إيش يعني فلسفة جارة إنه أنو مانتو أنو حوي يعني كفر الدرنا ووحنا نو ده قيمة ويلين لكن ده قيمة فاسدة قيمة صحيحة معها وحى إلهي سبحانه وتعالى قيمة ويلي النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بري ضدك مؤمنين تمام مسلمين تمام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دي سوي كتر بيدين قيمها لها إن إلى شذان لفري وحسب الصحة محل لدينا كفر الدرنو لكن هذا نقدم قلنا قيم خلدا values أو حبق قيمة شرعية ويلي إن أوده إن دلنا نمو بابا يعني ضد ندلنا يراه وحبرتيه ومثقفه كذا كذا وده عمر يسيب ده قبيلة يقولون وكشقة يكون مشكور سنة ودي سيدنا يرى ما وحبق قيمة يرى ميسو لأن لا يرى مثقفه وحبرتي أو محا يشك ترير دول محا يشك أو وطنية لقوم عابي لقوم مشغولية ما أنتوا نحكي كوريجية وحبق قيمة يرى ميسو وعي في عنتها قبيلة ده هي قبيلة مركو وحوي وده إيمان عقيدته صنع أخلاق ونكسن النصب عرض شرف إلى الانتد مركو لحريره بعينه وقت اللي جليه الدفاع على السياق موارد لقوم بحياة صحتها dhulka iyo wadaniyadu markay qiimo iyo aqeedo iyo akhlaaq iyo diin ay calaaqay xiriir la leedahay ayun bay sax tahay in waqti la galiyo oo tadxiyo loo sameeyo laakiin waxa soo dhani markay ka marnaadaan diin iyo aqeedo iyo alla ka cabsi iyo aakhiro iyo qiyamkii saxda ah nabi sallallahu alayhi wasallam una baray qiyam faasida bay noqonayaan awoodahani dhalinyaranimada way dilayaan qofka dhalinyarada awoodiisu yani boqolaal qabiil buu waxtari karaa boqolaal dhul buu waxtari karaa boqolaal madhab ayun buu tadwiir horumarin ku sameyn karaa marka aad meel yar ku xirnaato oo qolo yari ay meel kugu xirnaato halka ay taagnaato awoodahaagi yani hadri bay ku tahay waxa la yiraahdaa qofka muuminka ee muslimka dhalinyarada waa inuu rumeeyaa almuslim akhul muslim qofka muslimka waa muslimka kale walaalkii marka adiga iyo qof muslima yaani idin kala xirin qabyaalad iyo wax la xiriira yaani idin kala xirin dhul iyo yani passport iyo wax la mid yaani idin kala xirin yani kullu ardin yahwi al-iman
هذا فهو أرض المؤمن دول والباء إيمان كجرو ضد أهل الإيمان يجوعن دول كلام قف كلام مؤمن كهنا دول كيسوي أركا واجي محاها إيش إذا ذاتك مؤمنين تاهو أنا ده قبيل حدية يعني محدش عشرة يركوا حديدين هي دول يركوا حديدين هي أستان يركوا حديدين هي أنا يجرين قف كمؤمن كهي إيمان كيس حركة يا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عام كذا وكين انطلاقي أود دلنا يرد المسلمين توقيما فربنا بيكون فدسي وحيابها ربنا هذا قف دلنا يرد مسلم كأه مثقف كأه وحبرتي أوده سدلنا يرد أي دفاعيين وحكم إذا إنه كحروبه الخوف على الحياة إنه كحروبه على الخوف على الرزق إنه كحروبه يعني العبودية للقيم الفاسدة انتهت من حلقات كوجا من جميعنا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما